su-aasheeda koowaad waxay tahay dalku hadda wuxuu ku jiraa xilligii doorashada waxaa u sharaxan madaxweynenimada ilaa iyo 10 qof aaway qofkii al-shabaab u sharaxna mise al-shabaab miyayna soo sharaxin qof bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin runtii waxa weeye waxaad u aragto inay wax saxa oo xaqa ay yihiin ayaa lagu darsadaa cidda ku dooranaysa aad dooranayso ama cidda aad rabto ayaa loo maxay heeday lagu darsadaa waxa meesha ka socdo dhan ayaan wax aragnaa inay yihiin wax baadila oo wax jira aan ahayn xaq aan ku soconin xaq darraa iyaga dhan marka waxa weeye xaq darrana weligaa alle waxba laguma darsado marka saas daraaddeed annagu laa'iq nooma ahan ku waxaasoo kaleeto ama nooma cunnato waxaasoo kaleeto inaan wax ku darsanno maxaa yeele wax ku dhisa dhammaantood baadil ku dhisan weeye xaq darro al-shabaab maxay ku diiday inay shacabka Soomaali doortaan dadka hogaaminayo al-shabaab maxay uga soo horjeedaa dimuqraadinimada horta meesha waxaa sheegtay doorasho laakiin doorasho kama jirto waxaa weeye xulasho ay xulanayaan dadka gaalada ah iyo dadka ay gaaladu keensatay cidda ay rabaan iyo cidda u fulinaysa ahdaafta iyo ajandaha ay leeyihiin u fulinaysa marka election meesha ma yaalo selection waaye waxaan leenahay markaa dee ummad Soomaaliyeed yaan la nabin oo waxa weeye aan la barobagaanin ummad Soomaaliyeed ma dooranayso doorashana ma laha waa cidda waxaad xulanaysaana waa cidda iyada ah waxaad tiri waxa meesha ka socdo doorasho ma waa xulasho amirada shabaab dadka ma doortaan maxay al-shabaab uga duwan tahay waxa ka socdo aad sheegayso aan doorashada ahayn waxay kaga duwan tahay runtii waxa weeye amirada al-shabaab waxay ku socdaa la doortaa laakiin waxaa lagu doortaa dariiq waafaqsan shareecada ilaahi subxaana wa tacaala innaga waxaana dad muslimiina dadka muslimiintana allah subxaana wa tacaala wuxuu sameeyey dariiq iyo waddo ay cidda hogaaminaysa ay ku doortaan taani allah subxaana wa tacaala waxa uu u sameeyey qawaaniin iyo maxay shuruuc cidda la dooranayo laftigeedana laga rabo oo mulsimku ah ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu noo jideeyey oo uu noo sameeyey marka ciddii laga helo maxaa weeye maxaa la dhahaa qawaaniinta laga helo ama laga helo waxa weeye sifooyinkaas laga helo laguna doorto qaabkii waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa noo nabi sal lla ly slam ay ku dhisanayeen lagu doorto waa la doortay waxa weeye laakiin doorashada islaamku uu leeyahay iyo waxaa farqi u dhexeeya doorashada ay rabaan nimanka dimuqraadiyada sheegta ee gaalada ah waxa ay rabaan ayaa kala duwan waxaan leenahay anaga marka waa la doortay waxa weeye umaradeenna iyo madaxdeenna iyo walaadeenna iyo waa la doortaa dariiq waafaqsan shareecada ilaahi subxaana wa tacaala hadda sida ololaha socdo dalka waxaa ku jiro in dumarka wax laga siiyo hogaaminta dalka al-shabaab taas maxay ka qabtaa waqti al-shabaab hogaamiye dumar u dooran doontana ma jirtaa horta inaga waxaan nahay dad muslimiina dadka muslimiintahayna waxa weeye allah subxaana wa tacaala meesha uu dhigo ayaa laga rabaa inay dhigmaan haddii waxa weeye allah subxaana wa tacaala ay rasuulkiisa wax jideeyeen dadka muslimiinta xaq uma laha inay ay wax kala doortaan isay rabaan ay yeelaan qadiyadda labaad oo aan rabo inaan caddeeyo waxa weeye dadka maanta soo sheeganaya dumar inay yihiin ayna una ololeynayaan in waxa weeye ay rabaan in dumarka xuquuqdooda iyo sida ay ku sheegaan iyo ay soo celiyaan ay u doodayaan waxaan leenahay kuwaasi ma matelaan dumarka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ma matelaan waa runtii waxa weeye dad ay dabada ka soo riixeen oo waxa weeye ay soo borogaraminayaan uun nimanka gaalada ah nimanka dimuqraadiyiinta ah ay soo riixayaan iyagaasaas ku sadgoosanaya iyagoo kale dana ka dambeeya middan hadda ay ka rabaan ka dambeeya hadafkaas oo ah in la fasahaadiyo bulshada muslimiinta sida ay gaaladuba ay u fasaaday maadaama annaga dad muslimiina aan nahay ilaahay subxaana wa tacaala gabadha muslimadda iyo wiilka muslimkaaba waa uu qiimeeyey ahdaafna wuu u kala yeelay gabdhihiina shaqaa loo yeelay wiilashiina ama raggiina shaqaa loo yeelay qolo walba marka shaqadeedii ayaanu mar rabnaa inaan ku celino haddii ilaahay subxaana wa tacaala qadiyadda ugu dambaysa waxa weeye marka ragga laftigoodii ayaan waxa weeye majaal ugu wada furayn qiyaadada iyo waxa weeye madaxtinimada oo rag badan oo sifaadka laga waayey qiyaadada laga waayey ayaan helaynin dumar iska daa warkeedee waxaan leenahay marka islaamku meeshii uu dhigay dumarka ayaanu dhigaynaa islaamkeena diinteennana kuma hayno gabar madax u noqotay dad maxay muslimiina oo waxa weeye ama wilaayo ama madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama wasiir intaba madax u noqotay annaga kuma hayno diinteenna kuma hayno al-shabaabna waxaa isteerin u ah oon rabno cidda ku farxaysaa ku farxdo cidda ka naxaysa ka naxdo waxaa isteerin u al-shabaab waxa weeye kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala iyo sunnadii nabigeena moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wixii waafaqa waa waafaqsana wixii waafaqa waayaan ma waafaqsan siyaasadda dalka waxay ku dhisan tahay mise ku salaysan tahay qabiil mise waxa loo yaqaano 4.5 al-shabaab way ka soo horjeedaa intaan maqlay laakiin markaad fiiriso gobollada al-shabaab ragga loo doortay inay ka noqdaan amiirada
kama soo jeedaan qabaa'ilada meesha degan beelaha meesha degan intooda badan taasi miin ahayn 4.5 oo shaati kale loo xiro wixiiba hadduu qabiil mar walba gadaal uga jirayo laakiin oo laleeyahay mana aha annaga waxa weeye horta qabiilka waxaan aaminsanahay sida ilaahay ka yidhi subxaanahu watacaala inuu yahay litacaarafu in la isku garto la isku xiriiriyo ninba qaraabadiisa uu ku xiriiriyo in adeerka iyo qilibaftiga iyo cidda baahan la isku garabsiiyo sidaa inuu yahay laakiin uma aragno sida maanta ay u arkaan nimankan gaalada ah iyo nimanka murtadiinta ee daba socda si ay u arkaan oo ah in asaga wax lagu qaybiyo asaga wax lagu dhiso midna uma aragno annaga waxay ku xiran tahay cidda horta madax noo noqonaysa meesha ay madax ka noqonaysaba laba shay ayaa lagu xulaa labadaa shay waxa weeye inuu leeyahay horta awood iyo imkaaniyo wax maamuli karta oo waxa weeye marka laga soo tago islaamnimada awal shardigu waa inuu muslim yahay oo nin diinta ilaahay sharciga ku dhaqamaya u yahay laakiin marka dadka muslimiinta dhexdooda ay noqoto laba shardiya laga rabaa shardiga koowaad waxa weeye in uu horta qawi yahay oo waxa weeye ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin inuu qawi yahay horta marka horeeto nin dee wax maamuli karo xoog le inuu yahay yani oo siyaasad iyo caqli laxan ka leh qadiyadda labaadna waxa weeye inuu yahay amiin inuu yahay aamin inuu yahay oo waxa weeye dadka muslimiinta ah hantidoodii naftoodii maalkoodii cadaaladoodii wixii o dhan waxay nin aamin ah inuu yahay labadaa haddii laga helo magac uu raba ha yeesho qabiilka uu doono ha ka soo jeedo reerka uu raba ha noqdo isagaasaa looga dhigaa madax iyasaana la geeyaa ee kuma dhisnin aslan waxa la yidhaahdo qabiil iyo qabyaalad midna kuma dhisnin wilaayaadka haddaad soo wareegtana ma arkaysid nin lagu soo xulay meeshaan qabiil hebelaa degan lagu soo xulay ma jiro waa laga yaabaa nin deegaanka uu ka dhashay qabiilkiisa in madax looga dhigo iyadoo loo arkay marka inuu qawi iyo aamin yahay waa laga yaabaa in marka nin qabiil kale ah madax looga dhigo iyadoo loo arkayo qawi aamin inuu yahay shuruudaha nooma xiran annaga al-shabaab waxay sheegataa inay la dagaalamayso dowladda soomaaliya markaad fiirinayso meelaha qaraxyada iyo la beegsadaan waxaa ka mid ah hoteello oo dad badan joogaan makhaayado iyo meelaha shaaxa lagu gado taasi haddii al-shabaab dowladda la dagaalamayso maxay meelahaas oo la beegsataa qaraxyada runtii waxa weeye annaga horta awalan qofka muslimkaa dhiiggiisa wuxuu naga joogaa meel aad iyo aad u weyn marnana xarka shabaab mujaahidiin ma kuma degdegayso mana ku xadgudbayso qof muslima dhiiggeed biidni illahi tabaaraka wa tacaala ahdaafteedana ka mid maaha bal waxa ay jecel yihiin waxa weeye in gaal uu fakado intii muslim uu dhiman lahaa xataa gaal ka fakado laakiin waxaa rabaa in la isweydiiyo meelaha hadda hoteelada lagu sheegayo hoteello ma yihiin mise waa xerooyin ciidan weeye waxaan ognahay hoteelada muqdisho ninkii tegey yaa garanaya kolley hoteelana waa hoteeladka shacabka muslimiinta caadiga iska seexdaan ummaddu ay degan tahay weligeed al-shabaab ma aysan qarxinin laakiin hoteelada maanta la qarxinayo dhammaantood la fiiriyo awalan waxaa lagu gadaamay waxa weeye dhagax waaweyn oo waxa weeye difaacyo ah ثانيا waxaa lagu soo xashriye lagu soo kulmiye lagu soo ururiyey ciidan iyo juyuush kala duwan oo intaa ilaalinaysa wax meesha ku jira taa waxay tusinaysaa horta meesha inaysan hayn hotel inaysan hayn maxay hoteelada dadka shacabka muslimiinta ay degan yihiin lama ilaaliyo dhagax laguma gooyo qadiyada labaad waxa weeye inagu waxaan la dagaalsanahay dadaan la dagaalsanahay dadkaas waxa weeye dadka gaalada ah iyo dadka gaalada raacsan ee murtadiinta meesha ay galaan magaca ay u baxsadaan ictibaar ma laha haddii xero caskari ay dhahaan ama ay dhahaan xero ciidan iyo hadday u bixiyaan intay degaan ay hotel u bixiyaan macnaha isku mid weeye waxaan leenahay marka hoteelada waxaa loo yaqaan maanta illee waa la qarxiyey dhammaantood waxay xiraan ciidan weeye waa wasaarado ay leeyihiin nimanka gaalada raacsan iyo gaalada laftigooda ay leeyihiin wasaaraddii maaliyadda hotel ay degan tahay wasaaraddii waxaa weeye gaadiidka cirka dhulka waxay ku tulaan hotel ay degan yihin wasaaraddii waxbarashada hotel degan tahay amiiradii al-shabaab markii dadka la hadlayaan mise la qudbeynayaan mise makhaayadaha ay joogaan haddii intii dowladdii soomaaliya soo dirsato askar mise diyuurado soo dirsato iyo meeshaas qarax la beegsato oo laga yaabo inay hal amiiroo shabaab ay ku dilaan ay laakiin dad badanoo shacaba ku dhammaadaan taasoo kale miyayna ahayn taad hadda aad noo sheegaysay taasoo kalena ma wax la aqbali karaa horta inagu ma ahan maxay aheeday shacabka muslimiinta anagu isku mid ah muslimiin aan nahay isku dhiigaan nahay isku damaan nahay gaaladuna runtii anagoon xataa meeshaba teginin iska daaya oo shacabka muslimiinta keligood ahiin ayay laayaan amiir shabaab iyo waxa nin shabaab xataa askarigiisa uusan ku jirin dadkeena habeen iyo maalin yaan uga digna dhanaa war ka leexda ka carara waxaana weeye nin aan nimankaa taageersanayn hoteelada ay seexdaan ma tago idan waxa weeye waxa meesha tagaahay 99.9
iyo weliba maxaa dhihi karo boqolkiiba boqol dhihi karo waa iyakii madaxdoodii iyo waxa weeye sirdoonkoodii iyo waxa weeye dadkii iyaga maxaa u ahaa ciidanka u ahaa staafkii waardiya u ahaa dadkaasa hoteelada yaa taga haddaan wax qarxinayno waxaad maqli lahayd hotel ku yaala bakaaraa la qarxiyey waxaad maqli lahayd hotel ku yaala suuqa xoolaha la qarxiyey waxaad maqli hotel ku yaala waxa hurwaaya la qarxiyey ayaad maqli lahaday haddii aan hotel kasta qarxinayno laakiin hoteelada makal mukarama ku safan waxa waye nimanka ay wasaaradahoodii markay u adkaysan waayeen intay meel samaystaan isku aamini waayeen oo hoteelada ay soo galeen taa hadda waxa waa xero ciidan hotel lama yiraahdo umana qasdin qof muslim oo Soomaaliya ama muslim kale xataa uma qasdin anagu ila dilo marna aad iyo aad aan uga taxadirnaa meesha la gelayna intaasoo bilooda laga yaabaa in waxa weeye lagu hayo mukhaabaraad sirdoon lagu hayo ma ka heshaa barnaamijyada dalsoor ma danaynaysaa in la helo warbaahin Soomaaliyeed xor ah oo u adeegta bulshada fadlan taageer dalsoor waxaad bixisaa $5 ama $10 bishii deeqdaada sidan aad u bixin kartaa